kusoo dhawaada qodobkan oo aan ku jeexjeexi doono 6 astaamood oo ugub ku ah dumarka Soomaaliyeed. dalka Soomaaliya oo uu burbur siyaasadeed ku socday tan iyo dabayaaqadii 70-meeyadii taasoo keentay in ugu dambeyntii uu si buuxda afka ugu dhaco nidaamkii dalka ka talinayay 1990kii waxaa deeta xigay burbur ku sii dhacay anshaxii xeerintii iyo xaragadii dhaawacantay ee siyaasadda Soomaaliya iyo guud ahaanba Soomaalida. burburka ku habsaday siyaasad ku sheegta Soomaalida oo aan u bixiyay magacyo badan sida siyaasad geel haatan maraysa siyaasad TikTok ama TikTok politics waxa uu dhowr iyo 10 sanadood ee tagay si tartiib ugu sii siqayay dhanka dhaqanka oo aanu dhowr qodob ka soo qaadan doono saameynta sirgaxan ee ay ku kala yeesheen ragga iyo dumarka Soomaaliyeed maadaama ay haddaba dumarka toosan u sii muhiimsan yihiin inay bulsho taaqtaaqdo aan ku bilowno 6 astaamood ee ceebaysan bisna ugubka ah ee aad ugu sii dhex faafaya ama loogu dhex faafinayo dumarkeena Soomaaliyeed. dumarka baraha bulshada camal la'aanta u dhex taagan dabcan waqtigu waa muhiim waana waajib diini ah in laga faa'iideysto balse waxaad arkaysaa gabdho da' kasta leh oo inta baraha bulshada soo dhex fariistaan oo waliba live geystaan halka taagan tiyo aanay jirin wax mowduuc ah oo ay gudbinayso dood ay gudoominayso ama ra'yi waxgal ah oo ay bandhigayso. qaarkood waxay markiiba bilaabaan inay akhriyaan faallooyinka loo soo qorayo oo mararka qaar aflagaada ah amaba aan wax nuxur ah xambaarsanayn. waxa kale oo aad marar badan arkaysaa gabar kamid ah kuwa baraha bulshada dhex taagan oo meelo fog ugu safraysa nin aan qabin iyadoo waliba aan dhuumanaynin oo ay reerkeedii uga raali yihiin. dumarka isruuxa ee isjir muujiya waa ifafaale kale oo ku cusub dumarkeena Soomaaliyeed balse si weyn imika u fidaya. caadiyan dumarka Soomaaliyeed wax kaleba lagu sheegay lama arki jirin ama ugu yaraan dhaqan la aqbalsan yahay may ahayn in la arko iyagoo jirkooda madlo bulsho ku muujinaya. heer haatan ay dalalka muslimka ah qaarkood ay muuqaalada soo qaataan marka ay doonayaan inay caayaan cirdiga Soomaalida oo ay magacyo ugu yeeraan. ogoona mar aan sii fogeyn culimada islaamku waxay hablaheena Soomaaliyeed ku amaani jireen xijaabka, edebta iyo asturnaanta oo ay astaan u ahaayeen. furiin lagu faanayo ama gabar bulshada ku hor caayaysa ninka ay kala tageen. arrintani waa mid kamid ah ifafaalooyinka dhaqan xumada ah ee yaqyaqsiga leh ee la caadiyeynayo waxaana kamid ah in furiinka loo muujiyo inaan la kala jeclayn. dumarka la qabo oo lagu dhiirigelinayo inay guryaha iska dumiyaan, inay raggooda ku falaagoobaan ama la murmaan, baarinimada oo la ceebeynayo iyadoo la sheegayo inay janno yar galayaan marka ay garoob noqdaan, qiimaha guurka oo hoos loo dhigayo taasoo ah aragtiyo aan macno samaynayn mashaqooyin badanna laga dhaxlay. waxaa sidoo kale ku jira furiin xaflad loo dhigayo naag aan cuddo dhamaysanin oo markiiba nin kale isla soo taagaysa iyo wixii lamid ah. dumarka oo qabyaalada ku sii talax tagaya bilowgii waxaanu arkaynay dumar jidadka isku rifaya iyagoo aragti qabyaaladeed ka duulaya oo magacyo qabiil ku dhawaaqaya. waxaa xigtay in gabdhihii dagaaladii toos loo geliyo oo tusaale 2 reer oo dagaalamaya ay u kala doodaan 2 gabdhood oo caan lagu sheegayo oo iska soo horjeeda. waxyaabihii naxdinta lahaa ee ugubka ah waxa kamid ahaa markii ugu horeysay in qof dumar ah la sheegay in ay nin iyadu gacanteeda ku dishay qabyaalad darteed kaasoo waliba ahaa nin dhimirka looga jiray. haddaba markii dumar lagu biiriyay dagaaladeeni nicda ahaa misna qabyaaladeysna dabcan meesha iyo meel ka sii liidata ayaan u soconaa. in ragga si wadareed loo caayo intii aan wax darsayay weli ma arag dumar raggooda caayaya marka caalamka kale la eego. Soomaalida lafteeduna dabcan dhaqankan ma lahayn balse haatan waxaa sii caadiyoobaysa in dumarkeena qaarkood ay caadaystaan caayada raggooda. tan ugu sii caab badanina waliba waxa ay tahay in dumarka ragga caayaya ay mararka qaarkood caayada u gudbiyaan rag qalaad ama shisheeya taasoo ah arrin lafteedu hadhow ku soo noqonaysa oo dhaawac guud u geysanaysa jiritaankeeda iyo qofnimadeeda balse aanay ka fikiraynin waayo ninkii ay waxay dareensiinaysaa in aanay wax macno ah ku fadhiyin. isna dabcan uu ka faa'iideysanayaa qofka raqiista ah. dumar jirkooda ka ganacsada oo bulshadii toos ula sheekaysanaya ulana macaamilaya. tan ugu darani waa in dumarkaasi ay bulshada ku dhex leeyihiin saameyn badan oo wararkooda la sii faafiyo ama loo riyaaqo ayna jiraan buga ka sii macaasha wararkooda oo ay dad badan ku sii xiran yihiin waana arrin ku ceeb ah ummad muslim ah. waxaana waliba taa ku sii laran dhowr dabeecadood oo aan Soomaalidu dhaqan ahaan horey ugu lahaan jirin oo ay ku jirto in dadkan qaab qabyaaladeysan loo difaaco. waa sida qofkii oo leh maxaad u maagaysaa dhilada beesheeda taasoo muujinaysa in qabyaaladii qarmuunayd ay lafteedu hoos u sii daadagtay hadiiba ay meel sare joogtay. ugu dambeyntiina dhaqamadani waxa ay kamid yihiin kuwa ugu daran ee aanu ka soo qaadanay falfal xumooyinka ku cusub dumarka Soomaaliyeed taasoo u baahan in dhaqso loola tacaalo looguna istaago wax ka qabadkooda waayo bulshadii ay dumarku ka xumaadaan tafiirta iyo caruurtuna waa ka tawafaan kadibna way tabar dhigtaa oo dabar go'daa waayo dumarku waa dunta bulshada. la soco qayb kale oo ku saabsan dhaqamada ugubka ku ah ragga
haddii alla idmo. maxamed xaaji hadal sama TV.